aad u mahadsantihiin waa inaan sii yara wadnaa insha Allah wax yar baa noo haray. The brother said it well. He summed it well. He said programs are needed, number one, right? Yes. Educating so we can change this cycle, you know, this epidemic cycle that's going on. Yeah. Also, we talked about engagement. We talked about that, which is another big thing. As a father, you have to be engaged. Even though you have all these challenges, still you have to be engaged because this is your investment. This is your future. And also we talked about, let's not generalize the entire community. That there's a lot of success stories, that a lot of great fathers, right, out there doing some good work, and we need to highlight those success stories Yep. so that people can follow those examples. So I think that's what we've all There decided. is still a problem that we have to talk about it. Like Yes. there is a problem existing in our community right Bring now. awareness Awareness to to the the problem. problems. Okay. Well, aad old mahadsantiin. Now we're gonna go to the next question, inshallah. It is, can a single mother teach her son how to be a man? That question, I do find it. First of all, I was raised by a single mother, and I think she did a wonderful job with the help of Allah. And I think before, the mothers from back home cannot be compared to the mothers of today. So that's also something you have to look at. When you're looking at the context of, can a single mother raise a man? The answer is yes or no. And the reason I say yes is because I was raised by a single mother, and she was a general. I'm talking about not a mother, she was a father, and also a general. You don't cross paths with her, you don't screw up. She had high expectation. There's rules, there's things that the father would apply, she would apply. But as a young man growing up, she was still a mother, right? Yep. Still there's that emotions, there's no father in my life. Yes. Because what a father does is, he shows you how to be a man at different stages. How to be a young man, how to be respectful to women, how to behave towards women, how to behave towards your elders. That's something that a mother cannot teach. She can preach it, but in practice, a father can grab you by the hand and show you. So there's a difference. Anyone can preach, but if you don't have that gender to show you, you cannot do it in practice. So as a man, I said today, a mother cannot raise a child on her own. Whether he's in the house with the father, with her husband, or if they're divorced, still you need the father to play a big role. I'll give you an example. All of us have children. We know they misbehave. Some of us know friends and families in the community. When our kids go to school, and those children, I mean, I've seen a lot of kids who don't have the father present. They have certain attitude that they express at school. When that father comes, that child changes. Everything stops. Without touching, without doing any harm to the child. But you have to understand, there's that connection between men. I know you can act a fool around your mother, but I know you can't act a fool around me. Yep. And all I have to do is look at you. If Hoya just looks at you, nothing stops. A father comes in, the whole room stops. He can be a father that's not even active, but he comes in. Some mothers, you know what they say? "Ha ii xumaado odaygayga." But you know what? Asxaabta ma hayn karo without aabba la'aan. Wallahi ruma. Albaabka markuu saa ka soo galo, everybody waa askar fadhida. Abiya soo galay. Ma baxay. Libaxa guri. Hooyadii hostage lagu haystaa. Because naxariista weeyaan. Hooyooyinku, they have a different type of emotion. Moogtahay naxariis. So when you look at it, my statement here, what I'm saying, is that a mother cannot raise a man. But remember, that man is always going to have something missing. He's always going to have that father piece that's missing. And when you go to prison, you ask every young man, I'm talking about black and brown people, what is the one thing that got you here? They're going to tell you, lack of father in my life. What do you mean by that? He said, when you look at our community and we're playing sports, I look back, there's no father behind me. When I look at the white kids and some of the other parents of color, I see the parents in the stand saying, good job, Johnny. So what about the young Somali kid that's playing sport?
The father's not there. What about when he wants to do extra activities? The father's not there. What about when he wants to go to the movies? The father's not there. Ria, movie wa haram. Okay, what else can we do? Nothing. So you have this void. Meshi aabo ma joogo. Aabo activity lama qaadanayo. Aabo guriga markuu yimaado wuu hurdaa uu daalan yahay. You know, marka wax weydiiyana he's on the edge. Wuu xanaaqsan yahay. Hurdada ku yar, stress ku yar, financial struggle, challenges. So marka Facebook ku jira. Ha, marka mamadi, that's a new generation of father, not the old father. We have to say disclaimer, the old fathers in there, what's up with each But what I'm saying is, a mother needs a father in that child's life. Whether they're together or not, ilmaha solo wuxuu baahan yahay aabo tusaale ragnimo ah. Ma fahanteen? So marka insha Allah idinkaan isoo tuuraya nin walba ogtiin badankeena aabayaal Allah una xariisto walaalkeen saacid wuxuu yiri aabahay aniga hal sano jiro dhintay. Ayuu dhintay. Adiga storygaaga waa different. Anigu aabaheen wuu noolaa. But he chose a different path. Runta la isku sheegaya. And imagine mid bay maamada ku wanaagsan tahay. You have to give credit hooyooyinka. Adoo aabog soo korin ayaa maanta biilaysaa aabihii aad weligaad la soo nooleen. Bal why jaceylkaad u haysid aaba la-aantaas. Also hooyooyinkan waa ina xaqooda la siiya qaarkood badan kuguma dirayaan aabahaas no matter if hadduu far qaaday hadduu qaadinba. The best father weeyaan. Which is akhlaaq wanaagsan. Ilaahun baa abaaldudkeeda siin kara. That's not something to be rewarded in this dunya, mogt. But waxaan ku leeyahay imagine aad aaba arkin 27 years. Aad maantan uu kula yahay inuu 27 years kula joogay. It's because one hooyada fiican. But at the same time aabuhu muhiim ku leeyahay war you would do anything to find aabaha. Sama. So waxaan usoo gudbinayaa walaalkay Faarax ku sii darso insha Allah. Ani horta khayr Allah ku siiyo sidaadoo kale. Aniga hooyo isoo korisay aabahay wuxuu dhintay anoo yar. Allah naxariis. Waxaana ku soo barbaaray xero qaxooti. Sax. oo nolosha adag tahay. dhowr iyo 10 sano aan ku noolaa. hooyana intaas ila soo xarbinaysay. hooyada haddii isbarbar dhigo haddii oo aabaha la waayo mise hooyada la waayo hooyada yaa saameynta ku yeelanayso cunugii qofka ilmaha hooyadiis ay dhimatay saameynta aad u weyn tahay haddii aabaha uu dhinto saameynta way yar tahay badanaa balse weligaa haddii ilmaha markaa tahay soo koraysid waalidkaaga uusan kula joogin gaar ahaan labada waalid aysan kula joogin gaar ahaan aabahada uusan kula joogin weligaa booski aabaha wax uga kara ma jiraan mar walba wax baad tabaysaa markaad aragto sidaad u sheegtay ilmaha kale aabahooda la socdo hadda markaan arkay xitaa waxaan dhahaa ilmahayga markaan arko oo ila sheekeysanayo meelaha isu raacno waa iga farxad waad iga nasiib badan tahay aniga markaa yaraa fursadan ma haysan marka waalidka mar walba hala socdo hooyada hala socdo in haddii ay iyada wax walba u qabanayso ilmaheeda oo ay jeceshahay oo wanaagooda rabto balse roolkii aabaha sidiis u bannaan yahay weligiis uu bannaan yahay marka maadaama ilmahoodii koritaankoodii iyo noloshoodii iyo mustaqbalkoodii xitaa markuu weynaado hadda ani aan weynahay aabahayga hadduu joogi lahaa waa faraxsanaan lahaa farxad bay ii ahaan lahayd marka hooyada ha ogaato hooyooyin waxaa jiro ilmaha marka ay kala tagaan ninka ay kala tagaan ninka ha xumaado mise iyada ha xumaado waxay doontaba ha noqoto balse aan aaminsaneen ilmaha hortooda aabihii ku caynaayo aabihiina wuxuu yahay aabihiina saas waay kuwa dhahayaa jiro marka ha ogaadaan ilmahaaga haddii aabahood aad ku horacaysid ilmahaaga inaad caysay dhaawacna aad u geysanaysid qoyska hadda adiga aad hagaajinayso in uusan ku wanaagsaneen sida aad u dhisayso wallahi arrin muhiima ka taabatay because waxaan ka hadalnayna markii ugu horeysay sidaa cycle-kan u jebinaa because hadda ragga waxay eegaysaa qaar aabayaal may soo korin sidii aan u ilaalin lahayn aabanimada iyo qoyska sidii loo adkeyn lahaa taana waxay ku xidhan tahay haddii la kala tago ama haddii la wada joogaba
in aad mar walba lagu dadaalo dadaala because inankan yara maanta korinaysid cycle-kii buu sii wadayaa sax soo maha damage-kii ku dhacay wuu sii wadayaa so damage-kaas sidii loo joojin lahaana hooyo waa loo baahan inay ka qayb qaadato soo maha qayb weyn inay ka qayb weyn inay ka Qayb qaadato aad u because way jiraan rag badan oo dee nolosha ka dhacay runtaan isku sheegayna rag ma faaninayno you know anaguna waa inaan qaadanaa sheerka blameka ugu weyn but alsona dumarku waa in ogaadaan maxaa u wacan dad raggeeni ay ugu jiraan dhibtan soo ma nin madow wuxuu yidhi waxa laga hadlaa ninka madowga why is he not a good father a good husband wuxuu yidhi do you know the challenges that a nin madowga goes through day by day do you know markii slaveryga ninka madowga inta laga qaado plantationka la dhihi jiray ilmo dhal waa laga kaxeeya plantation kalaa la geeyaa bal imagine awowgaabaa laga bilaabay wixii awowga dhaawacii ku dhacay ayaa ilaa maanta ku daba socda anaguna markaan eegno 30 sano iyo 40 sano ummad waxaan ahayd dhisan right wixii nagu soo dhacay ayaan weli wadnaa culayskeedii marka inankayga maanta dhashay ayaan usii dhiiban lahay adaa imika iskale culayskii ama happy ku noqo ama ha ku noqonin so marka as a waalid hooyo iyo aabba waxaa loo baahan yahay in cycleka halkaa ku joojino dhehno you know what dad caqli le baan nahay tii shalay nagu dhacday maaha inaan sii wadno Yep. marka haddana waxaa nagu dhacay gabdhaheeni baa nalagu diray so marka meesha waxaa ka socda dagaal oo labadii qof loo dhex dhigay kubaddii cagta la yiri idinku ku ciyaara ayaana waxaan ku darsanaa sheekada ayada Ah. waa cabaarna waa hadlay inaan Sax. dadka kale fursad siiyaan jeclahay dhaqan waxaa jiro ragga soomaaliyeed qaar ay leeyihiin Ah. ma ragga qaar waayaad ragga Sax. idil maaha hooyada hadday furaan Ah, naag ilmihiina way fureen waa runta waa garataa waan umalayna garanayaa dhaqan reerka ayagoo kala tegay Ah. danta qasabtay in la kala tago haddana wanaag baa maaragtay Ka wada. lagu wada noola haddii loogu kala noolaan karaa ah in ilmihii aabihii nolosha ilmahooda Sax. ay mar walbo ka mid noqdaan hooyadana ay dadaasho aabbahana uu dadaalo oo ay wada shaqeeyaan labadooda ilmaha ah xooga in la saaro sax oo meeshii la dhihin which is dhaqan xun horta taasi way tahay so ilmaha u dareemin inay Ha. aabba iyo hooyada ay kala Wax ka dhex dhacay, ha. ha wax ka dhex dhacaysa ilmaha u dareemin ah Think about the Ah. kids' future. ha xitaa haddii I mean, So the number one priority should be the kids. ha xitaa haddii la kala tegayo carruurta yaa la iloobin ha caruurtii Caruurta la ilowin. ha sida caddaankay sameeyaan soccer moms ma aragtay odaygii wuxuu leeyahay ilmihii maanta soccer uu leeyahay labadiiba waa inay yimaadaan soomaaligu waxaas abadan isagoo joogu iman waaye ma isagoo maqan ayuu soo noqonaya oo inta arrin jirta weeyaan ya wararka qaarkood wuxuu ku dhahay caddaan baa iska dhigaysa haddii lagu arko cunugaaga saakarka inaad ku tegaysa and like you said, sometimes they use the kids as a hostage and ransom. taana way jirtaa you know Aha. maamadu xanaaq daraadii laga yaana dhahdo wallahi ninkaan inuu agaarkiina soo marayn marka ya iyadana waxay dhahaa aabihii weeyaan aabihii weegi wax kasii xanaajinayaba so taana way jirtaa dhaqan xumadaas Or you gotta pay a lot of money to just see your kids. yeah hooyadii haddii asaaskii gurigaa taag aabihiina waxa waa tiirkii oo guriga ku taagan yahay ah marka waa la isku baahan yahay waa isku baahan Mama, I agree that we all need each other weeyaan Ah. so in order to have a successful family Yes. everyone has to play their role Yes. Everyone they gotta do their part. so we talked about a son having a man so ma ninku nin buu u baahan yahay tusaale tusan imika su-aashan kale ku xigta waxa weeyaan how does fatherlessness aaba la-aantu affect boys wiilasha iyo girls gabdhaha markay noqoto self esteem self esteem af soomaaliya waxaa lagu dhaha malaynayaa kalsooni kalsooni soo ma Mhm. so imika wiilkii waan ka hadalnay wiilashuna waxay dhahaan always aaba la-aantu way yara damage garaysaa ragnimadee you know ilmo yar waxaa jira iskuulka lagu bulgareynayo because aabihii ma joogo dhahayo sidan sidaasaan ula dhiilgarayn jiray iyo sida hooyana ma tusi karto moogta because anagu markaan soo koraynay waxyaalo badan baa sameynay also waa maqashan arrintan daddy's little princess ya maraykanka imika odayaashu ma fahmayaan oo malaynaya dhaqankii hore lama fahmay daddy little princess iyo waxaas muxuu ka hadlayaa buu ku leeyahay dumar baa koriyeen ya soo maha marka inantii yareed ee ku jecleed imika maraykanka aabbo aad soo korisay that is self esteem ka dhisa waxay ogtahay gabadhii aabbo inuu ka dambeeyo so iyadana waa inaad ka fikirtaan how does it affect kalsoonida the self esteem
maxaad u aragtaa aniga like the mayta self-esteem you have boys and girls in the house aye so maha so does aaba la-aanta affect gabadha waxaan lena wiilkaan ka hadalnay always waxaan lena wiilku aaba uu u baahan yahay but in this case gabadhana aaba la-aanta ma dhibaysaa I'll say yes, cause girls they go through a lot too outside the house Mhm. when it comes to like dealing with boys and stuff. So they do need advice and examples from their dad how to deal with certain situations. all right I mean that makes sense Yeah. Or if the guy is right for her or not, or anything. and also giving out your daughter her big day Giving right ha markaas oo kale aad bay ugu baahan tahay yani marka xilliga guurka markii la gaaro oo kale gabadhu waxay jeceshaa aabaheed inuu meesha joogo ninkii laga soo doonana inuu aabaheeda noqdo ninkii dhiibi lahaa aabaheeda inuu noqdo haddii xataa ninka markaas guursanaya gabadha wuxuu ogaanayaa gabadhan inuu aaba ka dambeeyo ha inuu waxaa laga yaaba xataa uu ku xadgudbin ha uu leeyahay waxaa ka fikir aabbaa ka dambeeya gabadhan reer bay ka dhalatay ha marka taasoo kale waxyaalo weynay ka dhelaysaa adiga faaraxo ma sidee baad u aragtaa self-esteemka kalsoonida gabadha horta ilmahaas aan u sheegnay ha sideedaba waxaa waa aniga nagu daydaan ha sida wiilka aabihiis ugu daydo oo uu role model ugu yahay gabadhana sidaas lamid ah sax gabdhahana gabadha iyo wiilalba waan dhalay gabdhahana aabaha aad bay ugu jecel yihiin way jecel yihiin aad bay ugu qalbi jilicsan yihiin ugu naxariis badan yihiin marka haddii gabadha waxyaalahay ka faa'iidi karto waxaa ka mid ah in kalsooni ay hesho aabaheedii uu toosin karo oo wax walbo oo nolosheeda uu ka mid noqon karo waxaa ka mid ah in aabaheed iyo hooyadeed markay si fiican u wada dhaqmaayaan oo aabaheed hooyadeeda xushmeynayo oo qoyska uu fiican yahay hadhow mustaqbalka markay weynaato xitaa waxbay qoyska ay rabto waxaa waaye way meeshaas ka cabir because qaadanaysaa exampleadii bay soo aragtay ayay soo aragtay haddii ninka wuxuu yahay waxay leedahay noloshii aan rajaynayo ma ahan waxaa waaye nolol fiican way ogtahay waxay tahay marka meeshaas iyada nafteeda way ka faa'iidi kartaa cabdo arrintan u taabtay waxaa maskaxda soo yaro gashay social media waxaan ka aragnaa gabdho badan oo dhahaya my dad is not good to my mother arrimahaas waan maqlay 100 jeer Somali men this Somali men that and there are some cases badan way jiraan raggeena ay dayaceen dumarkii so gabdhihii yaryaraaya soo koray marka dumarkii xaasas weeyaan imika so odayaashii ka complain garanayaan de waa awoyaasheen iyo aabayaasheen sax ay leeyihiin raggaasi rag ma ahayn oo dariino harabiya aabo so self-esteemkan laga hadlayo kalsoonidan taasi ma u malaynaysaa arrintan aan arkayna maanta taala inaan ka fikirno gabadha damageka ku dhacaysa waxay noqon doontaa markii weynaataa la arkaya marmar inkastoo aan dhaqan aan dhehno inan hooyadeed baa korisaba inaga tahay dhaqannimo ma aragtaa baan ku leeyahay maxaan ka qaban karnaa aaba la-aantaas marka noqoto dhinaca gabdhaha self-esteemka iyo kalsoonida wallahi horta aniga 4 gabdhood aan dhalay horta maasha allah ya afarteeda gabdhood maasha allah horta ilaahay dhaafo very close anahay ha oo dhaaf way ha friends anahay waa sheekeysanaa Sax. been ku sheegayo sax fahmino ha aabe horta allah u naxariisto waxaan nahay 4 wiil iyo 7 gabdhood Sax. aan hal gabar aan naga dhibata allah u naxariisto sax aabeena runtii gabdho aad iyo aad u jeclahay Sax. very close ahay ha mar walbana wiilasha wuxuu dhihi jiray anuu farti uu fiiqi jiray wuxuu dhihi jiray abdiciisa aniga aa iraacay saan fiiriyo walahi jacaylka daraad aha waxayn doonaa ar mafahmino marka horta runtii haddii laga hadlo maanta haddii la fiiriyo gabdhaha haddii si loo fiiriyo horta aabahay very close ku yihiin mafahmino waa runta haddii oo aabaha meesha ka baxane waxaa laga yaabaa si gaaraan inay dhaawac dhaawac ay u keento kalsoonida iyo kalsoonidii meesha ka baxda waxaa laga yaabaa war hataa dee beri oo nin soo doonta camal hataa ay dhahaan war naga dhaaf kan hooyadeyba kan aabihii wakatay kanne
nin Soomaali maxaa ka guursanay waxaas niyadda ee gashato way jirtaa maanta arrintaas arrintaas waa jirtaa waa la isku haystaa waa la isku haystaa Ha. laakiin haddii ay aragto aabihii hooyada say wanaag ka dhexeeya iyo ha ayaga beri waxaa laga yaabaa ninka soo doonta inay saas ugu naxariisato sideeda aabbe nin naxariis badan ha nin naxariis badan oo aad qabin ma wallahi aad mahadsantahay faarax waxaa rabtay inaad wax ku yara dartid ma waxaa ku yara dari lahayd mise waa waxaan ku dari lahaa un si uu sheegay Ah. waxaa hadda cusub maahan balse gabadha markay aragto aabbo hooyadeed aan ugu naxariisanaynin hooyadeed oo aabbaheed ka calcalayso wax uu ka sheegayso cuqdad inay qaadaa laga yaabaa cuqdad bay qaadaysaa nin walbo aabbaha markuu wanaagsan yahay waa role models waa lagu dadaa soo maaha aabbaha markuu xun yahay nin walbana waxaa waaye waa xun yahay hadhow marka waa tan social media aad ka maqlayso leh iyadoo aabbaheedii uu xumaayo hooyadeed ku xumaa ninkeedii hore guurkeedi ugu horreeyay inuu ku xumaada laga yaabaa marka aabbaheedii ninkeedii connectionkay samaynaysaa nabade waa ku daay bulshadii oo idilaa xun ninkii oo idilaa xun anigoo idilaa wada xun may arrimahaasi way dhacaan marka waxaa loo baahan in laga wada hadlo arrintu sidaa maaha aabayaal saad arkaysiin maasha allah aabayaal waxaa jooga meesha wiilashoodii oo gabdhahooda iskula siman yihiin la dhaqmanaya making sure that kalsooni si u lahaadaan carruurtooda we're gonna continue insha allah now we're gonna talk about how the who holds men accountable for not showing up in their children's life. Yeah, who holds, whose responsibility it is. Markaan noqono aba markaan laga waayo aabanimada. Yeah, na tusaya accountable ya dhahaya you need to be. Waan ognahay hooyadii baa loogu baahan yahay inay accountable ka dhigto aba. That's a good answer. bulshadana role bay ku leedahay. So society has to play a role holding fathers accountable Yes. for being Yes, for waxaa laga being yaabaa father. waxaa laga yaabaa aabbaha in uu reerkiisii dayacay Mhm. ilmihiisii iyo noloshoodii iyo xaaskii ayagoo kala maqan mise isla joogo inuu dayaco Mm. ninka asaga ah uu isku dayaayo in uu qiil samaysto Sax. asagoo mas-uuliyaddii dhabarka u saaraayo Ha. xaaskii mise Iyadoo ilmihii kalabaya. bulshadiina waxaa waaye ceeb iska saliin ka dhigaayo ceeb nin ceeb aan lahayn marka waa in loo sheegaa qofka mas-uuliyaddiisa dayaco bulsho ahaan waa inaan dhahnaa inaan maaragtay aan ku ceebino oo aan In la dhaho noloshaada wax ka bedel. noloshaada wax ka bedel wax loo sheego la sabood gareeyo tan kale reerka markay wax soo dhex maraan inaan u sacbatno oo aan isku sii dirno sii burburin waa laga fiican yahay waa inaan Waa dhaqan xun. heshiis aan ka dhigno gabadhana aan la hadalno waqtiga this time is a healer Ha, waa runta. waqtiga wax buu xalliyaa Ha. marka dadkan markay isku xanaaqsan yihiin oo wax soo dhex maraan Waa in la dejiyaa. waqti kadib Ha. in la xalliyo oo nin baa hadda ka hor waxaa lahay gar walbo Mm. oo laisugu imaado oo cid walba ay ku guulaysan weysay Ha. yuu ku guulaysa xal ka helaa Ah. war waxaa lahay war niyahow sidee baad ku xalisaa cid anaga waan xal waan ka gaari waayna mar walbana adaa xaliyo wuxuu dhahay aniga idinka markii ay arrinta taagan tahay Mm. oo tensionka uu kacsan yahay Ah. yaad Dhex gashan. dhex gashaan anigana waqti baan siiyaa Ha, dadka let them come down. let them calm down qof walba su-aal buu isweydiinayaa xitaa qofka hadduusan qiranaynin xitaa inuu khalad ka leeyahay waxaa laga yaabaa in uu maskaxdiis ka shaqaysiyo oo isdhahaa su-aal isweydiiyo iniyo mas-uuliyada meesha ku leedahay what role Do you aniga play? aan did I play in this marka waa in bulshada ay Ka qayb qaadato. ka qayb qaadato si qoyska markuu burburaayo laisugu celi lahayo oo xal looga heli lahaa So marka waxaan u baahannahay sidii marba arrintana kusoo noqonayso counseling oo markay dhibaatooyin dhacaan also to hold men accountable we have to speak up right But Yeah. the culture. the fathers have to speak up that are doing things differently if you hear someone saying changing your child's diaper you have to speak up right Yep. if we see injustice wax khaladka waa inaan bedelnaa sidaan ku bedelayna maaha dee
berri baan ka noqonaya anigu wax kama qaban karo ka dhaqaaqaya taa looma baahna waa waxa maanta socota Yeah, a magaalada lot of mentalities like Sama. it's not concerning me, Ah. so why do I have to care but you about have to speak up and also you have to do it in a way to fix something صح صح. saasaan ka hadlo Yes. okay this one to Ashton it's for anyone what advice would you give to men who try to show up in their kids life once they become adult ilmihii markuu maamadii meel ka soo saartay now he's a man the mom did all the work put him through school successful now he wants to show up what advice would you give him to that man that try to show up once that they became adult markaas kale qofkii waa Maba kuu baahnee. yeah Accept him back. Yeah. Maba kuu baahan. Qof cunugii waa weynaaday ma kuu baahna ma ogtahay. but what advice would you give though Aabaha to the ma- aabahas Aabaha, the advice I would give is gonna be like, you gotta be there for your son or for your daughter when they were growing up, the time they needed you. taasi waxay la micno tahay beerta markii la falo ah kow markaad beer abuuranaysid صح waa in aad geedaha marka hore jarto صح waa in cooska waa inaad goysid aad goysid Mhm. waa in aad beer dhulki fashid oo Ah. ciidii aad Ah. aad gedisid ah waa inaad abuurtid mhm waa in aad qashinka iyo wax walbo aad prepare ka samaysid صح macnaheedu waxay la mid tahay ilmaha markay weynaadana noloshooda kusoo darsamaya steebyadaasoo idil ayaan kasoo boodayaa beerta markii ay karto ah haruurkii lasoo gooyo ah fruits waxa yaan cunayaa ah horta aqligal caqligal Wax maaha soconaya ma. tan kale waalid aabaha you know social media actually weekend dhexdiisa mise weekend laga soo tegay waxaan ku arkayay wiil weynaaday Ah. oo aabihiis uu ku dhalay wadankan maraykanka gudihiisa ah oo markuu dhalanaya aabihiis ugu wardambeysay Sax. hal sawir baa laga hayay sida la Ah. sheegay sawirkii uu social media soo dhex dhigay nin Soomaali ah ah oo magaciisa nooca yahay ah ayaa aabihii u dhahay Ah. waa la raadiyay ninkii waa loo helay ninkii nin oday waa nin wiilkii wiil weyn waa mhm soo ma garan waa oday laba oday oo israadsanayo ah marka ilmahaaga waxay ku baahan yihiin si walaalkeen sheegay markay yar yihiin ah they need you the most ah so you need to support them in terms of their Their education growth, their basic needs Emotional their needs, emotional needs Emotional, their physical needs sometimes they need some kind of protection ah yes. if they are being harmed your be harmed by other people Sax. marka aabaha ingiriiska af soomaaliga kaga fiican u malaynayaa maxaa la dhahayay ilmaha waxay u baahan yihiin dhan waalidka aabaha labada waalidba gaar ahaan aabaha waxay u baahan yihiin ilmaha markay korayaan markay weynaadaan daxigaaba waxaa waaye meesha raba iska marayaan oo noloshooda dabaran karo waa mar lagu kala tagay so in summarizing in the question said what advice you would give to a man who try to show up the kids when they're adult and we said There's no advice. you know the advice is brother make sure you take part of their life when they're growing up Yep. that you don't have this incident so instead of us giving you advice when it's too late we're giving you advice before it's too late Before it happens, yeah. yeah. So, and those who happen to see their father, in whatever circumstances they may be, sometimes there's cases where the mother refused to give the kids to their father. There's cases like that. In that case, the advice I would give him is cherish whatever moments you have left together. Yep. Help him at adulthood so he doesn't repeat the same mistakes as you as a father. So you still have a chance depending on what went through that household. Because there's a lot of households we don't know what's going on. It's between them and Allah. But in reality, all we can say is حتى ilmahaga haduu nin weyn yahay imika gacanta qabo la fariiso intii sano kusoo dhaaftay dib u noqo isagana waxaad bartaa aabbo khaladaadkan sameeyey ha ku noqonin نعم. weli waa u baahan tahay aabbanimadii Yes. dee anagoo imika dee odayaala xitaa iska len imika odayaala nahay I wish I can get a little bit of training from my father, right? Wow. There's some things, what if I had a father? Maybe I could have do things differently. My life would have been a bit different. You know, I question some things sometimes, you know, which is natural. Maybe if I had a father giving me advice,
maybe I could have took a different path. Right? But now, can we continue that cycle? Well, no. No. The least we can do, even as an adult, I take advice from my father. As a grown man, right? Even though he didn't raise me an example for myself, when I visited him, I take advice from him. Meaning because I never had that father advice, the fatherly advice. So you always need your father's advice, whether you were together growing up or when you're adults. Yep. So we're moving on. As we can see, we're almost there. I do appreciate the time that you guys are giving us this authentic answers. And our viewers, we hope that they understand when we tell stories, we're storytellers as people. We come from people that tell oral stories, right? waxaa la dhahaa waan gabnaa soma gabayadu caan baa lagu yahay marka dadka baadiyaha ka yimid nomadkana waa dad storytellers. So the best stories you hear in its own language. The English, it's a watered down language. Yeah. And so sometimes there's no a good way to tell what's really in your heart. And I do appreciate, using your mother tongue and your native language to really express how you feel. And I think that really has a bigger meaning than you speak in English. But I do appreciate if you once a while throw some English and throw it on there for our audience. Like I said, we are trying to break that cycle. Inshallah. Right? So the next question is, when parents divorce, why do some men divorce the children? We talked about it. We said it's dhaqan keena. Ninku wuxuu jecel yahay carruurta intuu gabadha jecel yahay. Waa dhaqan Soomaaliyeed. That's true. And waan maqashay boqol jeer. I love my kids because I'm in love with my wife. Yeah. The day I'm not in love with her, hey, love my everybody kids. has to go. Which is a very selfish, Yeah. right? Selfish attitude weeyaan. And we don't understand the consequences of that attitude. The damage is going to do to your son and daughters. So dabeecaddan waa dhaqan, like we said, waxan waa wax la isku sii gudbinayo. Maraykanka ku kornay, dhalinyaro Maraykanka ka timid baan nahay. But at the same time, awoowayaasheen iyo aabbayaasheen dhaqankooda weli wadanaa. English, Soomaalina ma fahno. Qaarkeen. Soomaaligii ma fahmay, but dhaqankii wuu wadaa. Right? So marka maxaa loo baahan yahay? Waxaa loo baahan yahay, what do we need once we divorce? Diintu waxay tiri, sometimes the best solution is divorce. Waro? Divorce-ku maaha xaaraan horta. Dadka waa badankooda waxay dhahaan divorce-ku ma wanaagsana, but waxaa jira environment gabadha caafimaadkeeda u wanaagsanay. Ninkana ogaan wuxuu sameynaya dhaawaca to carruurtiisa ma ogaba consciously. So wuxuu ogaanaya markuu ka baxo environment-ka wuxuu sameynaya khalad ah. Gabadhuna, she has a right inay ku noolaato in peace. Ninkuna sometimes laga yaabaa maybe he can't do what he could for as a husband, he can't provide that need. But also, what happens after that divorce? Hope ma jira meesha marka la kala tago. Iminka waxa la isku haystaa dadkii wada joogay waa heshiis ka dhaxeynina la lahaa, qaarna uu ka dhaxeeyo haddana kama dhaxeeyo. But imagine qofkii ma joogaba. Is that very tough? You think taas way ka sii adag tahay kuwa isqaba? I think waa ka hadalnaa umaleynaya, waxaan dhahnaa hooyada lagu baahan yahay inay ilmahaas sida u jeclaadaan aabbahooda qulubtooda inay ku abuurto. And accountable ka dhigta aabbaha inuu waqti geliyo. Aabbaha xataa hadday kala tagaan. Okay, say marka ugu abuurayo asaga inuu waxay ugu abuuraysaa sababta waxaan ku leeyahay mataqaanaa marka hore haddii xataa ay kala tageen mar walba waa ilmihiisa inuu mar walba u imaadaa uu soo ogaadaa guriga imaadaa oo ka warhayaa markaas iyadana maya hooyada haddii aabbihi qof kale ka dhigaysa ka waran iyadana maya markaas way dhihi kartaa walaa aabihiina nin fiican oo ahaay saas laakiin hadduu asaga oo meeshii dhanba oo ready u ahayn oo ka taga ka waran waxaa kaloo dhici ka guuraba wadanka dhan ugu tago waxaa kaloo dhici karaa in ay aabbihii oo fiican hooyadii ay maadaama xanaaqii iyo kala tegitaankii ay aabbihii jar kaga dhigto ilmihii xitaa u diido. Intaa waxaa ku darsanaya Soomaalida mahmah ayaa waxa dhahda mise oraa ayaa waxay leedahay intay togoogta ku jiri lahaayeen tubta haddaad sanaadaan
صح oo ah ilmaha intii ay kugu jiri lahayn adiga iska dhal isaga socaya iskorinaya noloshii iyada ahayd hooyada wax inta laga dhalo laga socon jiray noloshu way isbedeshay wixii ma shaqeynaayo baadiyaha la jooga ma ahan marka reality-ga jiro ilmaha haddii aad u baahan tahay oo bulshada waxtar u leh waa in aad investment ku samaysid waa in aad noloshooda ka mid noqotid One thing I would like to say is a Cameroon professor said anthropologist in kuchira class wuxuu professor from Cameroon wuxuu if you don't take care of your child abayashu ka hadlay don't worry buu yiri society is waiting to take care of your child marka inshallah thank you everyone. Definitely now we are going to conclude with the challenges that we face raising kids in America and their efforts in helping them preserve their culture. And we understand that in order to preserve your culture, language is the key to preserving that culture. And we know that we're having a hard time for our younger generation to hold on to the language, to the culture. But again, like we said throughout our discussion, they need a father figure that plays that role. A child would only imitate, learn, and safeguard that culture as long as you're willing to be a present father. Those people who do not thank the people are the ones that are not very thankful to Allah. So we want to first thank our sister Sophia Idris for the wonderful program that she's doing. MashaAllah. Walashin, we want to thank her for being so young and so creative and keeping her culture and making sure that she's not shying away from the issues. And also she's making sure that her people are engaged and are moving forward to maintain their culture and also to tackle the issues that they face in their day-to-day life. And also we would like to thank this wonderful feast that we're eating here. Those of you who are not here, hopefully one day you'll have the opportunity the food is to so be part good. of the Shahan Sheko. We want to thank them, especially the elders, the parents, the Idris family for their hospitality. This was a wonderful evening for us, and I hope we can do this in many houses and show people that what our culture looks like and how we tell stories while having some great sambusa and halwa and fruits and I mean you name it, you have your choice. Again, we're coming back to the group. I want to thank them personally. On my right, a young soon-to-be father, inshallah, Abu Bakr, who grew up here and also is learning from the older fathers. I want to thank Brother Sadiq for his participation and dedication to today's program. Farah, who's always all over the place helping out in every cause. We want to thank him. And Abdo, who we all know in the city. If you don't know Abdo, that's your job to be searching. And so inshallah, we want to thank the family again. We had a great time, and we hope that what we discussed today is to bring awareness. It's not to insult anyone, and we can't forget the cameraman, the newscast guy, you know, Mohammed. You know, that's his nickname, Mohammed Runta. Mohammed or Mahmoud? Mahmoud. So yeah, we have to be careful. Mahmoud Runta. And like I said, you can follow him through his page, Facebook, his newspaper. He's also doing great things, helping out younger generation to bring out stories, cultural stories. We want to thank him for the invite and everyone that's involved. And also, one last thing, we want to make sure that the people that saw our story today, or our sheko, understand this is a personal opinion. It has nothing to do with anyone else's life. And what is between us. It's between us and Allah. And we don't want to offend anyone. We apologize if anyone is offended in what we had discussion. But we were telling you, this is what we discuss as fathers. And we hope to see mothers do similar things and talk about the issues of fathers being part of the lives of their children, and also how can we have a relationship that works whether we're together or not. So again,
Thank you guys. Thank you. thank you Thank you. howl aad u fiican baa samaysay thank you Thank you everyone.